السلام عليكم ورحمة الله وbarakaat. Dhammaantiin waan idin wada salaamayaa. Waxaana idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo inaad ku sugan tihiin meel walba aad joogtaan. Waa maalintii ugu horeysay aan video soo saarayo codkayga. Waxaan rajayn inaad ka heli doontaan si wanaagsan u fahmi doontaan. Maanta waxaan inoo wadaa cunto yar oo aad u wanaagsan dhadhankeeda, araggeeda iyo xagga caafimaadkaba intaba u roon ee taasho wanaagsan. Digsiga waan soo qaadan, dabka soo saaray, saliidda markaan kusoo shubay, waxaan ku ridayaa iskiila digaaga oo ah digaaga suqaarka. Kadib waxaan ku daray xabad basal aan si yar usoo jarjaray. Intaasaan isku walaaqayaa markay xoogaa isdhex galaan ayaa waxaan ku daraynaa xawaashida. Xawaashida ka kooban malgacad yar oo paprika ama barbarooniga shiidan, malgacad yar oo kamuuna ama shurkaad basaa u taqaanin, 3 miro toona, in yar oo filfila iyo in yar oo huruuda iyo in yar oo malgacada badhkeeda oo basbaas casaa. Intaa kadib markay isku soo walaaqantay, waxaan kusoo darayaa barbaroonigii oo 3 nooca iyo xabad tamaandho soo yaryareyey. Kadib haddana sidoo kale waan isku walaaqaynaa si isku keen dhex galaan si wanaagsan. Intaa kadib dabka ayaynu gaabinaynaa. Waxaan kusoo daraynaa in yar oo kabsar caleena si udug yar inoogu siiso. Kadibna waan daboolaynaa, wali dabkeenu sii deynaynaa. Intaa kadib waxaan soo qaadanaynaa 4 xabo oo eggplant ah. Geedkan Soomaali kuma aqaan, insha Allah dad garanaysaan iigu soo sheega qaybta faalada ama commentiga. Baalkii waan soo jarjaray eggplantkii, waxaa ka dhigay si yar oo khafiifa. Dusha waxaa ka soo mariyay saliid. Milix yarna waad ku darsan kartaa dad jeceshahay. Intuu furunka inoogu jiro waxaan soo qaaday baradho. 3 miro baradho ayadan waxaan soo jarjaray si wareeg oo khafiifa. Digsiga ayaan dib ugu soo laabtay. Waxaan ku dhex riday xabad basbaas ah. Haddaad jecesho waad ka diyadaa, jeclay basbaas ka helin waad iska dayn kartaa. Waxaan soo qaaday air fryerkii, baradhadii waan ku kurayaa. Baradhada waad shiili kartaa, laakiin sidan baa caafimaadka u wanaagsan oo saliid badan kaama qaadanayso. Wax yar baad marinaysaa oo si asaan yar u siiso iyo si aanay briidka hoostiisa ugu dhigin. Dab korontadan gelinaynaa, waxaynu u daynaa 15 daqiiqo. Iminka waxaan soo qaadanay eggplantkii aynu gelinay furunka marka hore. Kaliya waxaynu ka rabnay inuu inoo yaro jilco si inoogu laabmo. Hadda suqaarkii waan soo qaaday, digaaggii iyo turdii. Waan saaraynaa baradhadii aan air fryerka gelinay. Waan soo duuduubaynaa. Si fiican baan afka isku gelgelinayaa. Kadibna saxankii aan furunka dib ugu gelinaa foornada ama ovenka ayaan soo qaatay. Saasaan kusoo dhammaynayaa. Suqaarkii, baradhadii, kadib eggplantka ayaan geedkan saa ugu soo laalaabayaa. Kadib markaan kusoo riday briidkii furunka waxaan soo qaatay miro tamaandho. Tamaandhada waan soo shiidayaa. Waxaan kusoo daray in yar oo milxa tamaandhada iyo in yar oo shurka ah. Si u siiso flavor ama dhadhan yar oo wanaagsan. Kadib waxaad soo qaadanay ay cheese mozzarella burgerka hadba cheeseka aad u haysatid markaa guriga kugu yaala mutawafirka kuwa ah ayaad soo qaadanaysaa, dhakadaad ka saaraysaa. Hadda baradho yar baan dhakada ka saaro soo hadhay. Kadibna cheeskaan dhakada ka saari, furunkaan geliyey. Saasay diyaar inoogu tahay caafimaadka cuna. Annagana Ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad ha noo geliyo. Waxaan idinka codsanayaa haddaydan channelka subscribe idinahay inaad subscribe kusoo biirtaan oo subscribe-ka noo saartaan, like-tana noogu roonaataan. Videoga meegsar ayay gaadhsiinaysaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii hore noola joogtay.